kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idin lahaantiina meel walba joogtaan waxaan idin leenahay kusoo dhawaada barnaamijkeena faaqidada ciyaaraha ee toddobaadkan fadlan haddii aad nagu cusub tahay follow inoo dheh page-keena maxamed abuukar baariyo waa saaxiibkiin baariyo weynaan leh fadlan inoo follow garay haddii aad nagu cusbeen oo hore nala joogtaan like-ta commentiga iyo share-ta fadlan inoogu dadaal waxaan dareemayaa in share-to ay xaggiina aad ugu liidato asxaabteeda qiimaha iyo qaayaha mudan fadlan inoo share gareeya barnaamijka si uu u gaaro asxaab fara badan oo aan markaasi ka warhaynin barnaamijka oo xiiseynaya inay helaan qodobada ugu doorka roon barnaamijka iyo weliba sidoo kale into waxa ka cusub suuqa kale iibsiga ee qaaradda Yurub iyo caalamka oo idil fadlan inoo share garay sina follow garay page-ka haddii aad ku cusub tahay mahadsanidin ana ku bilaabay qodobada ugu doorka roon barnaamijkeena faaqidada ciyaaraha maanta ayaa waxa uu yahay Stefano Pioli oo ah tababaraha kooxda Al Nassr oo in badan ay markaas isku dhaganayeen Cristiano Ronaldo ayaa ugu dambeyntii waxa uu burburiyay heshiiskii uu kula jiray kooxda Al Nassr ee ka dhisan dalkaasi Sacuudi Carabiya waxa uu noqday tababaraha kooxda Fiorentina ee ka dhisan dalkaasi Talyaaniga isbuucan soo socda gudihiisa ayuuna markaasi heshiiska cusub qaranka ku duubi doona waa sida uu markaasi laga soo wariyay miidiyaha dalkaasi Italy warbaahinta dalkaasi Talyaaniga oo ay sheegeen in markaasi Fiorentina tababaraheeda cusub oo noqon doono Stefano Pioli oo horan u ahaa tababaraha kooxda Al Nassr ee dalkaasi Sacuudi Carabiya sidoo kale waxa barnaamijkeena qayb ka ah Pogba oo aad in badan taqaanaan Paul Pogba ciyaaryahanka qadka dhexe ee Juventus hore u ahaa jiray xulka qaranka dalkaasi Faransiiskana ayaa markaasi xilligan 3 sano oo markaasi ka ganaxnaa kubadda cagta kadib markii laga helay jirkiisa daroogada ka mamnuuca ciyaartoyda inay isticmaalaan ayaa markaasi FIFA ay ganaxday kadibna maanta waxa uu helay kooxdii oo markaasi ku riyoonayeen oo markaasi helo ciyaarihiisa ayuu dib u bilaabay dadka in badan waxay islahaayeen 4 sano hadii la ganaxo ninkan shaqadiisu u dhamaanaysa maadaama uu daadiisa 30 iyo jajab uu ahaa toos buu u fariisanaya leesdahay laakiin waa ugu dambeyn maanta wuxuu heshiis la qalinka ku duugay oo 2 sano ah kooxda Monaco ee ka dhisan dalkaasi Faransiiska heshiiskiisa ayaa maanta waxa la sheegayaa in 24 saac soo socda oo markaasi tagi doono xarunta tababarka kooxda Monaco ee dalkaasi Faransiiska si uu markaasi u dhameystiro heshiiska una maro tijaabada caafimaadka sidoo kale Chelsea ayaa waxay xalay si aan caadi ahayn ugu soo badisay kooxda markaasi isla ciyaarayeen ee Club World oo markaasi 3-0 ku soo badisay iyadoo la arkay Dilip gooshiisii ugu horeysay inuu xalay ugu dhaliyay kooxda Chelsea waxaana Chelsea ay markaasi isku aadayaan waxay ka soo bixeen groupka Chelsea iyo waliba Flamengo ayaa 9 dhibcood leh Chelsea-na 6 dhibcood ayay groupka kaga soo baxday Chelsea waxay markaasi wajahaysaa kooxda Benfica Flamengo-na waxay wajahi doontaa kooxda Bayern Munich sidoo kale tababaraha kooxda ama directorka kooxda AC Milan ee lagu magacaabo Tareh ayaa sheegay in Rafael Leo uu yahay ciyaaryahan aad iyo aad u weyn oo projectigooda ama mashruucooda kooxda ay hore u dhaqaajinayaan oo qayb ka yahay waxa la sheegayo in uu markaas Rafael Leo lala xiriirinayo inuu ku biirayo kooxda Bayern Munich waa wax laga soo tagiyo oo kaliya miidiyaha ee aanan ahayn wax runa wali ma aanan hayno wax mashruuc ah ama project ay noo soo gudbiyeen kooxda Bayern Munich oo ay nagala hadlayeen ciyaaryahankan sidii u qaadan lahaayeen isla waxaan ku guda jirnaa barnaamijka AC Milan waxa markaasi tababaraha ama directorka AC Milan ee Tareh waxa uu sheegay Mike Mignan waa goolhayaha kooxda AC Milan waxa uu sheegay meelna uma socdo sanadkan ee xagaaga 2025-2026 waxa uu sii joogi doonaa gigada San Siro ee dalkaasi Italy oo ay markaasi ku ciyaarto kooxda AC Milan waxa taasna meesha ka baxday rajadii weyneed ay markaasi qabtay kooxda Chelsea oo in badan ay ka daba carareysay ayadoo dhowr dalabna ay u gudbisay oo ay markaasi laga soo diiday sidoo kale directorka kooxda ayaa sidoo kale maanta waxa uu sheegay Theo Hernandez inuu markaasi jeclaaday inuu markaas chapter kale cusub oo noloshiisa markaasi inuu ku biiro ama koox kale cusub inuu doorto
waa kooxda Al-Hilal oo la xiriirinayay laakiin wili la hadeertan heshiiska ma aanan dhameystirin ayuu yiri oo wili ma uusan ku biirin wuxuu xiligan yahay ciyaaryahan AC Milan oo haddii heshiisku uu hirgeli waayo wuxuu ka mid ahaan doonaa kooxda AC Milan ciyaartooyda ay markaasi la shartigi doonto xagaaga soo socda waa sida uu sheegay tababara directorka kooxda AC Milan ee Tero sidoo kale Ansu Fati oo ciyaaryahanka aad ku da'da yar ee kooxda Barcelona ayaa waxa uu ku biiray maanta heshiis loan ama heshiis amaah kooxda Monaco ee ka dhisan dalkaasi Faransiiska waxaana markaasi directorka kooxda uu sheegay in Deco oo ciyaaryahankan uu yahay ciyaaryahan mustaqbal leh laakiin dadka qaarkood ay sheegayaan in ciyaaryahankan uu noqdo ciyaaryahan duqoowe ciyaaryahan ay ka dhamaatay laakiin waxaas ay tahay wax aan jirin ciyaaryahanka 23 sano jir weeye oo yiri Deco oo directorka kooxda Barcelona wilina waxa uu leeyahay mustaqbal aad u weyn sida darteedna ma rabto Barcelona inay ciyaaryahankan iibiso laakiin si oo markaasi uu la qabsado xaaladihiisa kaleento waxay markaasi ku diraysaa kooxda Barcelona loan ama si markaasi oo ula qabsado kubadda cagta xirfadiisana ay hor u sii kacdo ciyaaryahankan ayaa la xasuustaa asiga markuu soo baxay inuu la hijray waa New Messi meesha uu hadda ku jiro ciyaaryahan Lamine Yamal ayuu kaga jiray kooxda Barcelona laakiin daawac hareeyay dartiisa ayaa markaasi xirfadiisa iyo kubadiisa ay hoos ugu dhacday daawade haddii aad inala soo gaartay ilaa dhamaadka barnaamijkeena waxaan leeyahay fadlan haddii aad nagu cusub tahay oo aad ka heshay barnaamijkeena follow inoo dheh siina share garay like iyo commentigana fadlan hanaga iloobin aad baad u mahadsantihiin asxaabteeda qiimaha ee qaayaha mudan qof walba oo daawanaya barnaamijkayga fadlan waxaan ka codsanayaa inay sii share gareyso si aan markaasi aan u gaarno 10,000 ee followerska ugu horeeya aad baad u mahadsantihiin saaxiibayaasheeda qiimaha qaayaha mudan waa saaxiibkiina Maxamed Abuukar Baariyo wada leh tan iyo inta dib ugu kulmi doono barnaamijkeena xiga waxaan leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh